بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو برع عبد الله هذا جكر وانا سويان waxaan la dhashay ninka la yiraahdo khadar magafi ninkaas ku dhaqaaqay hawlo aan sharciga waafaqsanayn oo ka hor yimid mabaadiida iyo nidaamka waxa loo baahan yahay in aad macnaha ka fikirto xaaladda lagu jiro xaaladda deegaanka uu soo maray horumar hadii ka hadlayso horumar maanta maalin aan ka fiicannahay oo aan ka wanaagsanahay ma jirto waxaan waxa weeyaan waa danaysi shakhsi ahaadeed magafayaasha dhuhuran meesha soo imaaday waxa meesha kuma hayaan beesha ay mataliyaan waxba ma hayaan way ma yaqaanaan ba warag Mareykan iska joogo la baahan yahay iyo in macnaha waxa heeday la buko in caafimaad qaba ka warhayaan annaga deegaanka joogno waxaan mar koobaad mar labaad mar saddexaad baan cambaareen oo macnaha aan u dul qaadanin waxa uu ku jiro khadar jigre ee ah fikirka mandhalisnimada ee waliba nabadiidka isaga iyo kuwa kale wadamada xiran waxa weeyaan la joogo waxay qabtaan garan waay faraha kala baxan leena hadii kale sharcigan qaban meel baa la saari kan nabadiidnimada ee waxa weeyaan mandhalisnimada ku la qaadanayo oo la ka aqbali ma aho waa bariyan sacab lagu qaran maayo maanta deegaankan horumar buu gaaray isjiidada iyo dhibaato iyo qabiil iyo qurun uu soo maray laakiin maanta uu ka soo baxay 10 sano u dambeysay nafis baan helay waxa weeyaan beesha isku magac dhaweysana sheeganaysan waxa hor u haysan wax naga maqan maanta oo macnaha u baahanahay ma jirto haddana waxu baahnaan anigu waxa weeyaan xafiis baan leenahay deegaan baan leenahay dawlad baan nin macnaha Mareykan jooga maseerka kama hadli karo shacabka ku dhaqan lagiida salaxadii email bari ee balaan kama hadli karo annaga joogna annagoo intaa waxa weeyaan adduunku nooc walba soo mariyay dhex taagnayn ilaahay cimrigeena soo gaarsiiyay ayaa joogna waxa weeyaan meel waxa weeyaan aan waxa uu kacdeen ayna idinka jirin baayadooda isu soo dhiiba waxa weeyaan dawladdiina iyo shacabkiina dambiga ka gasheen gacanta u soo dhiibta shacabka ay cafiyay anigayga baraha waxa weeyaan isu kay soo dhiiba ana idin gudbinaya cid ay khusayso iyo madaxa sare haddaad yeeli weeyaan soo dhiibi weeyaan la idin joojin maayo wala tamacas aniga qooni wala cidda sheeganaysa ma idin qooni annaga ka wakiila annaga wax leeyoodi waxa weeyaan ninka ka dhawaaqay Mareykanka dowladda Soomaaliya Itoobiya warba uma hayso waxay Soomaaliya kuma maadan nin magaalo ka cadhooday fidha yara waxa weeyaan ciidin ma ogo garaas qaraclaysan mid kale ninka la yiraahdo khadar wuxuu ahaa anfasirkii u horeeyay deegaanka macnaha waxa weeyaan la siiyo intaas oo 400 kilomitir oo dhul ah bilaash lagu siiyay hotel buu ka dhisay isaa hotelka si xarash lacagta intuu akoon ku shubto Mareykanka adana inta la soo dhaweeyay la sharfiyay la ixtiraamay ilaahay ba ogaa haddana ninka inuu maanta wax sheegto waa ayandar waxa weeyaan bal horta aad cid kale u hadashidee bal horta dadka aad macnaha qoyska ah ee macnaha reejikreeya waliba macnaha qaarkood waxa weeyaan ay baahay u dhimanayaan arwa kaasa kuwa xutar kuwaas wuxuu taro bal horta wax u soo tar bal cid kale iska daay waxa kale ma aho adduunku suu ahaan jiray iyo dan shakhsiyadeed iyo si xun wax u eegay adduunkii laga baxay xisbi wanaagsan oo si fiican u wada hawlihii loo imaday maamul suuban oo ugu horeeyay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar yaa wadanka jira wixii cabasho qaba ana waliba waan ugu daranay waxa weeyaan talada toosan ee wanaagsan wixii cabasho qaba xafiis beeladay welcome baan leenahay wixii laakiin meelaha ka bararleynaya ee hadlaya nima matalan cid shaqaynaya nima matalan annaga nima matalan hadii aan walaal ahayn oo aabna wada dhalay hadaf baan ku kala tagnay
aniga iyo inta ila fikri waxaan nahay dad dawlad deegaan isagu ninkaas Khadar Magafiin waa nin Mareykan kuwa kale waliba xuno waxa weeyaan awrka ku kacsaday rag awrka ku kacsaday jirta iskamuna garin doqon baahay oo waxa weeyaan waliba uga baxay shirkii Mandaleyska ayaa jira kuwaana waxaan ku waanayaa in ay faraha kala baxaan danaha iyo hawlaha wanaagsan ee noo socday iyo shacabka iyo dawladda ma hadda kala bixiyaan ba sharciga yaqaanayeen meel ba saaray waxaan dhammaan kula talan lahaa magafayaasha inay u kacaan meel kale tan waa lagu fahmay in meel kale u kacaan yaan kula talan lahaa magafanimadu waa dhamaatay hadda hore dil yaqaanay oo la moodi sidii way dhamaatay jidka toosan iyo wadada cadeed baan agta saaray horumar baan ku talaabsanay waxa weeyaan rag wuu isdhaafay rag baa u fikray deegaankan oo waxa weeyaan maskax iyo maal iyo muruq u horay oo halkan soo gaarsiiyay hadda muddadii u dambeysay macnaha waxa weeyaan jijiga dhowrkii shantii iyo 6 sano u dambeysay baa gacanta la saaray imika waxa ka tahay caasimada caalamka haddaba inay saa qurux badnaato oo saa wanaagsan ma aha rag baa maal galiyay rag baa waxa weeyaan maskaxdeeda iyo balankeeda waxa weeyaan qorshe galiyo habeen iyo maalin soo jeeday taar noocaas waxa lagu leeyahay hadaba kaale maal gasho dhulka doonto kaale qaado kaale dhiso oo kaale ku shaqeyso waan dodii una gafuurku ma taagi halkaas taagnaan oo carisnaan ay baal taayada ma aha sida daraadeed waxaan 1 iyo 2 iyo 3 ba aan leeyahay magafanimada in laga macnaha waan toobo xafiisyada iyo waxa weeyaan qaab dhismeedka iyo nidaamka ka jira deegaanka anafka lagu soo taaganay horta ruux walba isagu hoos isugu fiirsado gurigaaga iyo shakhsiyaantada marka waxa weeyaan nadiifisay aad isla halganto aad fikradda ciriyoon iyo qalb xumadii iyo murugta aad macnaha aad kala soo baxdo ayaad bulshada hor iman kartaa oo media ka hadli kartaa waxaan marka aan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa in ninka aan u jeedo waxa weeye ninka aniga walaalka Ilaahay Khadar liyo de markuu saxan yahay walaalna oo warno abay badalay meesha macnaha hadda uu ka hadlay jigji iyo waxba uu leeyahay jigje ma aha dhuxun buu ku dhashay halkaas ku soo jeeda iyo loo fiiray taariikhdiisa abayna halku ku dhashay ku dhintay halka weeyaan awoween halku dhashay ku dhintay halka weeyaan dhuxun weeyaan waxa uga fiican lahayd in waxyaalo kale oo macnaha dadku inay u garaabaan inuu ku hadlaa uga fiican lahayd tan way la waayeen isaga iyo kuwa kale wada madax dhukuran la joogo oo waliba dhika bashirka leeyahay khaanka isna ninkaas waliba inaan si gaar ah ayaa magaranaysaa yaa loo sidaan waxaan ku soo gabagabanayaa dhammaan magafayaasha way ka fashilantay tani isu soo dhiib oo dawladda intaad u soo gacan oo aad nala soo xiriiraan meeshii waxa weeyaan goobtii iyo annaga joognay deegaankii sidaas ku soo dhawaada sharciga